saxaafadeed ka soo baxay aqalka madaxtooyada ee maamulka SSC ee magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn ayay ka soo saareen qodobo dhowr ah iyadoo ugu horeyntiina uu saxaafadda u akhriyay xoghaynta warfaafinta Cumar Jaamac Saleebaan. saxaafadeed ka soo baxay aqalka madaxtooyada ee maamulka SSC ay ka soo qayb galeen hogaamiye ku-xigeenka hogaamiyaha guddiga golaha khusuusda iyo dhammaan xubnaha sida maamulka SSC saabsan yahay mowqifka hogaanka SSC ku aadan شر صحافات كان ساكا أي نسوق الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما أنت وتاريخ تاي سيدي تونكي بيشي تمناد لابد كون يقابل تبانك مالين ثلاثة وصحافات كان وكسر بحي هجانك SSC وحوكش أبسيه هاي أركتدا هجانك يكو آدن شركة rubaante ee loo cayimay in uu ka dhaco quraanta ama bartamaha bisha 11aad iyadoo oo labaduba ay ka soo yeereen bisha 5teeda iyo bisha 10keedu bisha 20keedaba dhinacyo ka hadlay xilliga shirku qabsoomayo mid kastaba ha qabsoomo mowqifka ama aragtida uu ka qabo hogaanku shirka ayuu ku saabsan yahay warsaxaafadeedkan saaka ee isugu nimid sida la socotaan hogaanka mideynta iyo hanashada deegaanada SSC waxa lagu aasaasay 15 Oktoobar 15 Oktoobar 2009 magaalada Nairobi ahamiyadu waxay ahayd laba qodob in deegaanadii la hanto maamulna loo sameeyo iyo in shacabka SSC gobolada SSC ku nool la mideeyo arrimahaas hogaanku waa bilaabay waqti badan bay socotay muddo kadib aqoon-yahanada iyo waxgaradka iyo shacabka SSC gaar ahaan qurbuhu waxa uu muuqatay in ay ka fadhido xaggooda dowrkii taakulayntu dabadeedna waxa la abaabulay shirkii London oo loo abaabulay sidii qurbo joogtu ay door wax ku ool ah uga qaadan lahaayeen qodobadii loo igmaday hogaankii lagu soo dhisay magaalada Nairobi hogaanka SSC wuxuu ka qayb galay shirkii qurbo joogta lagu qabtay London 22kii bishii Abriil ilaa 24kii bishii Abriil sanadka shirka waxa ka soo baxay laba qodob oo ahaa in sanadkan gudihiisa lagu qabto gudaha dalka shir iyo in la tayeeyo laamihii hogaankii SSC ee jiray shirkaas oo ku dhamaaday midnimo iyo is-afgarad iyo in dhammaan la wada galay hogaankii SSC oo qurbo iyo gudo iyo meel kasta shacabka rubaante uu hogaankaasi siyaasiyan uu matalo iyadoo taa laga duulayo waxa la qoondeeyay oo qurbaha laga qoondeeyay ergo ku saabsan in ay soo sahamiyaan deegaanka ku haboon ama magaalada ku haboon in lagu qabto shirka gudaha lagu qabanayo xubno 15 xubnooda ayaa dhulka maray xubnahaas qurbaha ay ka yimaadeen haddii ay gudaha yimaadeen hogaanka SSC gudaha ayuu joogay wax talagelye ah iyo wax barnaamijkii ay kala tashadeen ama qayb ay ka siiyeen ma jirin isla markaana dhaleecayn iyo xasaradayn ayay hogaankii ku bilaabeen xilliga hogaamiyuhu waxa uu ku sugnaa dalka Kenya hogaamiye ku-xigeenka oo ahaa hogaamiyihii hawsha waday baa joogay gudaha arrintaasi nasiib darro
hirgelin ergadii qurbaha ka timi ee shirka u socotay qabanqaabadiis ee meesha lagu qabanayo sahmintiis iyo hoggaankii inay isla kala qaadaan qodobada shirka London waxaa ka mid ahaa in guddigaasi ay soo sahmiyaan magaalada ku habboon iyagu kadibna ay ku soo celiyaan ciddii dirtay waxay bilaabeen in ay dhinacyo ka mid ah madaxda dhaqanka oo aan qorshuhu ahayn in laga talageliyo magaalada la sahminayo ay talada ku soo dareen taas oo gebagabadii ay ku dhawaaqeen in shirku taleex ka dhaco hoggaankuna uu taageeray shirka u magacaabista taleex loo magacaabay inuu shirku ka dhaco dhaliilaha hoggaanku uu tirsanayo waxaa ka mid ah in guddigii xulitaanka loo soo diray guddigii loo soo diray sahmintu ay xulayaan ergo tirada ergada ay xulayaan aan la garanayn isla markaana aragtida ama ideyada qaabka ay wax u xulayaan aan hoggaanku waxba kala socon taas oo aan waafaqsanayn qodobadii la isla qaatay inuu hoggaanku yahay cidda keliya ee matasha shacab weynaha dhulbaante shirkii horseed iyo kii London ee khaatumawanba qodobadii ka soo baxay ay lid ku tahay wax kasta oo ku saabsan hawlaha SSC ee la fulinayo ciddii loo igmadaa in ay ka talageliso hoggaanka ama hoggaanka laga raadiyo inuu isagu kalsooni siiyo hadday guddi tahay iyo cid kaleba wixii hawl qabanaya maadaama lagu jiro xilli murugsan cid kasta oo isxilqaantana laga shakiyi karo inay dhibaato keeni karto ama cido kale oo cadow inagu ah ku xidhnaan karto si too loo xaqiijiyo hoggaanku uu ka shakiyey xubnihii 15 ahaa ee gudaha marayay sida ay wax u wadaan si loo gaaro midnimadii iyo hadafkii laga lahaa shirka hoggaanku wuxuu ku soo tala jeedinayaa qodobo uu u arko in ay lagama maarmaan u tahay in shirka ka hor in si degdeg ah la isugu yimaado shir wada tashi si wax midaysan loola gogol tago shirkaas oo ay isugu imanayaan maamulka SSC isimada SSC iyo guddiga odayaasha GCS shirkaasi magaaladii kasta ee ka tirsan deegaanada SSC ku qabsoomayo iyo wadamada ka baxsan Soomaaliya meeshuu ku qabsoomayaba in shirkaas uu dhaco ayaa hoggaanku soo jeedinaya laba in wax walba laga hormariyo midaynta isimada si loo xaqiijiyo dowrka ay ka qaadanayaan shirka waxaad la socotaan in isimada qaar ka hadlay maamul goboleedka Puntland ee magaalada Garowe oo ay ders yihiin SSC isma ku sugan ay aragti ka sheegeen ay qabaan gobolka Cayn isma jooga aragti ay sheegeen oo qabaan isma badan oo ku aamusan ay jiraan marka si taa loo gaaro waa in la xaqiijiyaa dowrka ay ka qaadanayaan ismada shirka saddex in la joojiyo ergada ay gruupka gaarka ay xulanayaan isla markaana tirada ergada iyo qaabka loo xulayo ay ka soo baxaan shirka la isugu imanayo ee hoggaanku soo jeediyay hoggaanka SSC isagoo ilaalinaya midnimada iyo xal raadinta arrimaha ka taagan shirka waxa uu soo jeedinayaa qodobadaas oo u arko haddii la maro in xal wanaagsan la gaarayo waxa uu hoggaanku ka digayaa haddii aan xal la raadin sidii uu shirku
u qabsoomi lahaa arrimuna ay sidan ku sii socdaan in uu ka fiirsan doono mowqifka uu ka istaagayo shirka ka dhacaya gudaha Soomaaliya. waad mahadsantihiin. waxaynu ka daliilsan karaynaa inuu goodiga Ilaahay dhab yahay taas oo uu ku sheegay in dadku khasaare ku sugan yahay laba mooyaane kuwiisu samirka isfara xaqana isu dardaarma iyo kuwii isu samra xaqana isu dardaarma sidaa awgeed waxaan halkan maanta isugu nimi inaan ka hadallo doorka aanu ku leenahay shirka midnimada laga soo qaaday shirkii Khaatumo 1 kaas oo ujeedadiisa ama maxalka uu ka leeyahay shirarka noociisu ahaa midayn lagu kasbayo laguna xoojinayo wixii hore u jiray dabadeedna ay ka dhalan doonto qori isu dhiib mid si taariikhiya wax uga sii reebo waxaananu ka hadlayaa marka hore SSC waxay ahayd rabitaankii dadka waxaana loo walqalay 2009 bishii Oktoobar bartamaheedii ama 15keedii waxaa gugii labaad la dhigay 15 Oktoobar 2010 waa markay gujirsatay tii u dambeysayna waxay ahayd bishan aynu ku jirno Oktoobar 15keedii halka waxaa ka muuqanaysa inay dadku waxay leeyihiin u walqasheen oo ah mabaadi sanad guuradeeduna u tirsan tahay iyadoo sanad walba la qaban qaabinayo arrintaas ma aha mid laga weecin karo indhaha waa rabitaanka dadka haddaba hoggaanku wuxuu uga mas'uul ahaa dadka mabaadi buu uga mas'uul ahaa mabaadidaas oo ah rabitaanka dadka wax ka dhismay wuxuuna ka koobnaa hal qodob oo keliya arrin keliya ka koobnaa kaasina waxa weeye in ay dadku u noqdaan xor u noqdaan ka tashigooda aan cid hareeraha ku dhagan jirin waa halka qodob afka qalaadna lagu yiraahdo self determination arrintaasi laba marxaladood bay isku tashigii ay isku tashadeen kadib go'aansadeen inuu barnaamij u noqdo mid waxa weeye marxaladda koowaad waa laba qodob in soohdinta dhulka ay hantaan bulshadu iyagoo iskaashanaya arrinta labaadna waxa weeye inay midnimo ku soo haraan kana soo baxaan khilaafyada docaha ah taasi waa marxaladda koowaad marxaladda labaad waxa weeye in ay shir rigli ah oo ay ka soo baxaan wax midnimada wax tara ay qabsadaan waa goorma markay dhamaato marxaladda koowaad oo ah in midnimo lagu wada duulo iyo in dalka la hanto labada marxaladood oo midna midaynta iyo dhulhanashada tahay midna shirka ay ka tisha ay tahay oo ku kala jiray meelo ku kala habhaboon waxa hoggaanku ogolaaday in horay loo soo raro shirkii oo ku beegnaa dhulhanashada kadib waxa haddaba reeban in rabitaanka shacabka SSC la dabsiiyo rabitaano kale oo iyagu ah kuwo lid ku ah rabitaanka bulshada SSC waxa kale oo reeban qof kasta oo dhul tiriskiisu yahay SSC يعني دول تريسكيس يهي سوهدينتا SSC دول تريسكي SSC مباديديسو قشو سوهدين سياسات كالي إنو لسوا فريستو أما كالسوا غيب كالو إساقو وطتالادي وشير كالله ها سياسات
taasina waa mid kale oo reeban. waxaan intaa ku darayaa haddaanu nahay hoggaanka niman la cararaya ma nihin wax iyagu u gaara dacayadaa naga horreeya la yidhaahdo dad baa iska wata dhulka lama dhigayo wax looma oggola. waxaanu oggol lahay taladu in la wadaago loo wadaago sida ku habboon inuu shir dadku qabsado aayihiisa ka tashado lagu sasaleeyo rabitaankooda oo aan meel kale arrintooda loo weecin. taana waa ka digaynaa haddii loo baahdo isbeddel anagu dhir meesha ka baxday mani isbeddelku goorta ku habboon buu gelayaa. dastuurka axdiga ay leedahay SSC waqti baa ku yaalla muddaysan. muddadaas haddii ay dhammaato waxaa bisil isbeddelkii hanaan ayaa u diyaarsan doorasho oo hanaan la isku beddelo ah. mid karmaha iyo daaqadaha laga soo dhacayo ma noqon doono insha allahu. waxaan ku boorinaynaa dadka inay sidii ay midnimada ugu tashadeen ku ilaashadaan mabaadi'dooda kuna guul gaadhaan ilaahay idankiis. isbari sidoo aragtaa maanta shir saxaafadeed ka soo baxay aqalka madaxtooyada ee maamulka SSC. bismillaahir rahmaanir rahiim. muhiimadda shir saxaafadeedka waxaa akhriyay xogayaashii iga horreeyay xogaya Cumar Jaamacana uu soo ururiyay qodobada uu sheegay weeye muhiimadda saxaafaddu oo ah in wada tashi la isku yimaado degdeg in maxay ahayd toy isimada beesha SSC ay aragti midaysan ay ka qaataan iyo in la joojiyo ergooyinka ay kooxaha gaarka ahi ay xulanayaan oo ay cidna wax ka weydiinayn. kulli annagu waxa igu jirtaa qodobkaas inkastoosan ku jirintii xogiyo akhriyay doorka SSC inuu lagu caddeeyo intaan shirka la tegin oo caddaado. intaa kadib wax badan anigu oran maayo hoggaamiyuhuna waa inay isfaahfaahin doonaa. waxaa hoggaanka midaynta lagu soo dhisay Nairobi. shacabka SSC gudo iyo dibad wakiil baanu ka ahayn. waxaa kaloo sii xoojiyey oo ansixiyey isimadii isugu yimi buuro wadal. maxay ahayd toy waxaa isna jira xeer ama dastuur uu leeyahay hoggaanka midayntu. saddexdaasiba waxay tilmaamayaan xilliga iyo waajibaadka hoggaanka midaynta iyo goorta shir qabsoomi karo. saddexdaba way ku caddahay. shir wuxuu qabsoomi karaa marka hoggaanku u gudbo marxaladda labaad ee la hantiyo dhulka. waxaana golayaasha SSC hoggaanka SSC isugu yeedhayaan shirweyne dhulbahante marka dhulka la hantiyo. waa tii Nairobi, waa tii buuro wadal iyo xeerka ama dastuurka hoggaanka SSC. cid kale oo waajib u leh soo jeedin muujiye ama loo xilsaaray ama maxay ahayd toy cid mas'uul ka ah ama oday ha ahaado ama dhalinyaro ha ahaado ama koox isku sheego oo odhan karta shir baa dhulbahanta qabsanaya oo ku khasbi kara oo aan ahayn golayaasha SSC iyo xilliga loo egmaday cid aan ahayn waa baadil wax tahay. waxaana la bartay inta ummad la hawlgeliyo oo maxay ahayd toy dad la egmado in kooxo iskood isu abaabula marba wax ka daba keena. arrintaasi ma ay fiicna. shir maqaar saar baa la dhan ka dhacay. waxaa lagu khayaameeyey oo lagaga hosguuray hoggaankii wakiilka ka ahaa ummadda. kuwa kalaa hadda la wadaa cidna wax lagama weydiiyo. hoggaamiyuhuna waa inay faahfaahin doonaa. hal la joojiyo arrimahaas waa la isugu yimaada shir degdega. cidda waddaa wax aan wakiilada shacabka SSC ahayn oo ah hoggaanka iyo ciddii ay egmadaan waa baadil. waa ka hosguuris. waa dumis. wixii jirayna ha laga guuro. wax cusubna aanu abuuran dhulbahante ka yeeli mayno. digniinteedina way qabaan. waana ka fiirsan doonaa haddii aan shuruudaha hoggaanku isagoo midaysan uu soo bandhigay haddii aan shuruudaha saa loo filin
hoggaanku uu ka fiirsan doonaa. Wasalaam. haye hoggaan waxaad maanta soo saarteen shir saxaafadeed aad kaga hadlaysaan arrimo badan oo ay ka mid tahay mideynta iyo dib u dhiska maamulka SSC iyo shirweynaha ay isugu imaan doonaan ismada deegaamada Sool Sanaag iyo Cayn. sidee u aragtaa qodobadan aad ka soo baxay aqalka madaxtooyada ee maamulka SSC? bismillaahir rahmaanir rahiim. marka hore waxaan salaam u dirayaa shacabka SSC guud ahaan meel kasta ay joogaan. waxaan ugu hambalyeeynayaa sanad guurada labaad ka soo wareegtay aasaaskii maamulka SSC lagu sameeyay 2009. maamulkaas oo runtii wax badan qabtay, wax badanna soo kordhiyay, xoreeyay dadkii oo ku xoreeyay inay hal mabda wada noqdaan, mideeyay shacabkii. ilaahayna waxaan ka baryayaa sanad guurada dambe inay noqoto mid kasii qiimo badan oo kasii wanaagsan tan maanta. intaa markaan ka gudbo, war-saxaafadeedka uu akhriyey xogayaha warfaafinta iyo dhalinyarada Cumar Jaamac Saleebaan, war-saxaafadeed ku soo baxay wada tashi dheer oo hoggaanka maamulka iyo golaha xusuusda ay yeesheen muddo 7 cashaana socday. hoggaanka SSC waxaa ka go-an midnimada in la xoojiyo, in iyadoo la wada jiro dadka SSC loo adeego, danahoodana midnimo lagu gaaro. wax kasta oo midnimada shacabka SSC ka duulaya ama ku shaqeynayana waa soo dhaweynayna. taasaa keentay shirkii London inaanu nimaadno, wixii ka soo baxayna aanu qaadano. taasaa keentay inaanu shirka midnimada dhulbahanta ee gudaha lagu qabanayo taageero. sida war-saxaafadeedka ku cad ee xogeyaashu ka hadleen hadda, hogaamiye ku-xigeenkuna ka hadlay, mugdi iyo dhaliilo badan ayaa soo kordhay oo shirka iminka ku soo kordhay. mugdiga iyo waxyaalahaas soo kordhay waxaan u aragnay inay caqabad ku noqon karaan in shirku qabsoomo. taasaa keentay inaanu war-saxaafadeedkan soo saarno, talageliyana ku dhiibno siday noola eg tahay in shirku ku hagaagayo. ujeedadeeduna waxa weeye in wax hagaagaan. shirka ma mucaaradsanin, mana mucaaradayno. shir kasta oo midnimo dhulbaanta lagaga hadlayana waa soo dhaweynaynaa. laakiin mas-uuliyad baa naga saaran shacabka iyo deegaanka SSC. wixii khaldan waa ka hadlaynaa, waana ka digaynaa, talooyina waa ka soo jeedinaynaa. intaas baanu hadda saxaafadeed ku soo saaray. marka ugu horeysa shirkan oo in muddo imika hawshiisu socotay, wax wada tashiya oo maamulka SSC lagala yeeshay ma jirto. marar badan baanu isku daynay inaanu anagu raadino cidda wada shirka.